dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in halka ay dowladda Mareykanka ka taagan tahay biyo-xireenka muranka dhaliyay ee Niil uu yahay mid aan la aqbali karin. Washington ayaa wada hadal ka dhex waday dalalka Masar iyo Itoobiya oo in muddo ah ku muransanaa mashruuca biyo-xireenka oo laga cabsi qabay inuu dagaal u horseedo labada dal. Itoobiya ayaa Mareykanka ku eedeysay inuu ka dheereynayo doorkiisa oo ay sheegtay inay tahay inuu dhexdhexaad iyo korjoogteyn ku noqdo arrintan ayaa timi kadib markii Mareykanka uu sheegay in dhismaha biyo-xireen aanan dhamaystiri karin ilaa iyo inta heshiis rasmi ah laga gaarayo. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Itoobiya ay ka qayb geli doonto wada hadallada ka socda magaalada Washington. Haddii Itoobiya ay dhamaystirto biyo-xireenkaas, waxa uu noqonayaa biyo-xireenka ugu weyn qaaradda Afrika ee koronto laga dhaliyo, waxaana Itoobiya iyo dalalka kale ee dariska la ah ay ka heli doonaan koronto awood leh. Xukuumadda Addis Ababa ayaa doonaysa inay buuxiso biyo-xireenka marka la gaaro bisha Juun ee sanadkan, balse dalka Masar oo ku tirsan biyaha webiga ayaa walaac ka muujisay dhismaha biyo-xireenkaas, iyadoo sheegtay in saameyn doonto biyaha ay ka hesho halkaas. Dowladda Masar oo boqolkiiba 90 ku tirsan biyaha webiga Niil ayaa heshiis ay dhinacyada Masar iyo Suudaan wada gaareen sanadkii 1932 waxa uu dhigayaa in dhammaan xuquuqda biyaha la siiyo dalalkaas, waxaana Masar ay mashruucaas u aragtay mid khatar ku ah dalkeeda tan iyo markii la bilaabay sanadkii 2011. Haddaba Masar ayaa ka baqaysa in webiga uu gacanta u galo dowladda Itoobiya, waxayna doonaysaa in buuxinta biyo-xireenka ay muddo qaadato si aanay isu dhimin biyaha webiga. Arrintan ayaa xiisad ka dhex abuurtay labada dal, waxaana mid walba uu ku doodayaa inuu qaadi doono tallaabo walba oo laga maarmaan ah si ay u ilaashadaan danahooda. Dowladda Mareykanka ayaa soo kala dhex gashay labada dhinac sanadkii 2019 si uu u dhexdhexaadiyo, waxaana xukuumadda Washington ay Itoobiya ku boorisay inay dhaqangelisay heshiiskaas ayaa waxa uu u dhignaa in aanan la buuxinin biyo-xireenka iyadoo aanan la saxiixin heshiiska rasmiga ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa sheegay in warka ka soo yeeray dowladda Mareykanka uu yahay mid aan diblomaasiyad waafaqsanayn, waxaana uu yiri waxaan doonaynaa in Mareykanka uu yeesho door wax hagaajin ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhigiisa Masar u sheegay in dowladdiisa ay dadaal walba u geli doonto sidii heshiis looga gaari lahaa muranka biyaha ku saleysan ee u dhexeeya